gabadha saaxiibanahay muddo 10 sano ah. gabadhaas waa qof wanaagsan, laakiinse maalin walba waxay igu faantaa ninkeeda. waxay tiraahdaa ninkaygu wuu dheer yahay, wuu timo jilicsan yahay, wiilka cadcad yahay, wuxuu haystaa $1 million smile, markuu qoslo wadnahaaba ku istaagayo, dahab buu ii gadaa, holiday buu ii kaxeeyaa, maalin walbo flower buu ii keenaa, laguhu ii tutuujiyaa, waa aabba wanaagsan. naag ninkaygoo kala haysato maba jirtabo. waan kuugu ducaynayaa kaygoo kale inaad heshid. maalin maalmaha ka mid ah anigoo dalxiis u joogo dalka Morocco ba waxaan arkay isagoo naag kaleeto la qadaynayo. waan yaabay, waxaa isla ninkan mahanoo kii lagu faani jiray. sawiraan ka qaaday anigoo yaaban waxaan isdahay ninka maalin walba lagugu fanfaano hadaaba la ogaan doonaa wuxuu yahayba. hotelkaygan kusoo laabtay, telefoon baan u diray. waxaan ku iri walaalay ninkaagi oo naag kaleeto la fadhiyo ayaan arkay maanta. markii waxay igu jawaabtay allaha waan ogahay, maanta oo dhan wuxuu la joogay in adeertiis, halkaasna wuxuu u aaday shaqo. in adeertiis halkaas degan ayuu la joogay maanta oo idil. markii waxaan isdahay waxba sawiraha u dirin, tan waxay dhihi doontaa reerkayga ayaad ka masayrsan tahay. dhowr asbuuc ka bacdi waxay la soo xiriirtay gabaraan saaxiibanahay oo ka shaqayso asaga kambanigiisa. waxay ii soo dirtay sawiro asaga iyo naagta secretary-giisa ah. sawirahaasna wax fiican may ahayn. sawirihii toos iyada ugumaana dirin, waxaan sameeyey number fake aan samaystay, ka bacdi iyadaan u diray. muddo kadib ninkii isaga ahaa hadda anaa la socdo. mardhowna arooskeena ayaa dhici doono. hadduu laba koorabo gabdho kale uu ku dulwadaayo xaaskiisa, maxaa diiday inaan gabadhaas anigu noqdo? saaxiibadayna aad iyo aad ayay ugu faraxsan tahay guurkayga dhici doono. qabanqaabada arooskana wax weyn ayay ka qaadatay. wayba sugi laadahay arooska, mar walba waxay i weydiisataa inay malxiis ii noqoto. laakiinse ani waxaa ku dhahay maadaaba lagu qabo ood hooyo tahay, waa ceeb inaan kaa dhigto malxiis. isaga waxaan ku dhahay markuu arooskeena uu dhacaayo xaaskaaga dir dhulka hooyo u dir. laakiin waxay keentay dhaga adayg iyo ma jirto, ani meelooma socdo, saaxiibaday arooskeedana kama baaqanayo ilaa waynaan joogo. ninkaaxayga wuxuu ka dhacay wadan kale oo walaalkay uu degan yahay. ninkeeda markuu wadankaas aadayay wuxuu u sheekeeyay inuu shaqo u socdo. magaaladu asaga u sheegay maahe magaalo kale ayaan ku iri nikaaxaygu ka dhacay, say iyada u fahmeen inay isku meel tahay. maalin walbo saaxiibaday waxay i weydiisaa dumaashigay ibar. hadda aniga adiga double dating ayaan isla aadi doonaa. nimankeena saaxiibo ayay noqon doonaan. farxadeeda lamaba soo koobi karabo. smoke war kama hayso ninkanay ku baryootamaysa maalin walba ibar inuu yahay ninkay habeen walbo garab jiifato. aniga ninkabo aad iyo aad waxaan iskugu daynay inaan naagtaan wadankii hooyo ama wadan kale u dirno. xitaa wuxuu isku dayay inuu ku dhaho ciyaalkaana haynaye saaxiibada holiday u raac, wax walbana anaa bixinayo. laakiin waxay keentay dhaga adayg iyo saaxiibaday arooskeeda kama maqnaanayo, waa inaan joogo. haddaan malxiis noqon waaye maiden honor baan noqonayaa. markii dambe waxaa ku fikiray arooskoo dhanba inaan ka dhigo dumar keliya. waxaan ugu sheekeeyay inaan anigu ahay qof shaay ah oo nimanka iyo dadka badan ka xishoonayso. taa darteed dad yar oo familka iyo asxaabta ii dhadhow basa ayaan ka dhigayaa arooskayga. hadda ani wax dambi ah oo ilaahay untu dareemayo ma jirto. waayo naagtan markii hore ninkan guursanaysaba wuxuu qabay gabar maskiina oo dhulkii hooyo joogto oo uu dacwanayay. waxay ka dhaadhicisay inuu naagtan furo oo dacwadeedii uu cancel gareeyo si iyada u guursado. mar hore Soomaaliya ay dhahday nin saa ku soo xareysatid yuu kaaga tagaa. hadda day dhihi doontiin ninkan naaga kale ayuu ka raaci doonaa, naag kale sheegay 10 kale ha raaco. aan wax jacayla oo ninkan u qabo ma jirto. kaliya waxaan u dan leeyahay maalkiisa. markaan aanu ka dhamaysto waxa uu haysan doono ilaahay unte ma jirto. kulligoodna cayr haysla dalbadaan